السلام عليكم saaxiibayaal soo dhawaada mar kale magacaygu waa axmed daahir halkanina waa Moomin Academy and Computer Science maanta waxaanu dhisaan garan doonaa edhikaarkan hortiina ka muuqda balse inta ka horeysa haddii aad channelkani ku cusub tahay please subscribe saar soo kalena share leh si aanu helo saaxiib wanaagsan sida adigoo kale like na saar si aanu jarro malaayiin mayl kusoo dhawow casharka oo dhammaystiran soo markaa waxaad ka dooranaysaa qaybta file kadibna waxaad leedahay new ama waxaad leedahay control n sidan ayaa kusoo baxaysa markaa daaqadan ayaa kusoo baxaysa daaqadan haddii aanad markaasi aanad weli kala baran videogani hore ayaan kaga hadlay videogaas inaad soo daawato way kugu filan tahay markaasi qaybtan ugu horeysa waa projectigaaga magaciisii magacaad markaasi ula baxan lahayd bartii aad gelinaysay soo markaa haddii aynu inagu ka dhigno id card haddii aynu ka dhigno id card markaynu saa ugu qorro halkanna waxa weeyaan waa widthkii ama waa ballaci halkanna waa heightkii qaybtan iyadu waa orientationkii iyo resolutionkii oo markaasi iyadana ay 300 diin doono halka millimeterka waa inay marka hore millimeterku ahaataa waxaa loogu isticmaal badan yahay markaasi pixelska incheska iyo centimeter iyo millimeter labadan iyaga inta badan lama isticmaalo kadib halka millimeter ayaynu ka dhiganaa halkana waxaanu ka dhiganaa qaybta ballaca markaasi waxaanu ka dhiganaa 26.8 ayaynu markaasi ka dhiganaa 26.8 ayaynu ka dhiganaa markaynu intaasi ka dhigno halkan iyadana waxaanu ka dhiganaa waa ina markaasi waxaad iska hubisaa inay markaasi ku tahay 50.2 ayaad halkaas ka dhigaysaa 50.2 markaad ka dhigto qaybtan orientationka waxaad ka dooranaysaa portrait ayaad ka dhigaysaa ama saas ayaad markaas u taagaysaa adigu waxaad ka dhigan kartaa qaybta waxaad doontaa markaas ka dhigi kartaa haddaad doonto waad jeexin kartaa resolutionka iyada markaas waxaanu ka dhiganaa halkan 300 ayaynu ka dhiganaa videogani hore aynu kaga soo hadalay resolutionka hadba xad la isticmaalo ayuu leeyahay haddii projectigaaga ama waxaad samaynayso markaasi uu sizekiisu uu bato resolutionkiisa waa la yareeyaa haddii sizekiisu uu yaraadana resolutionkiisa markaasi waa la badiyaa marka qaybta resolutionka 300 ayaynu ka dhiganaa sidoo kale qaybtan iyadana waxaynu ka dhiganaa CMYK maadaama la daabacayo kaarka edhikaarka RGB iyo CMYK waxay ku kala duwan yihiin videogani hore aynu kaga hadalay kadibna waxaanu leenahay create markaan nidhaahno sidan ayaa inoo soo baxaysa hadda xoogaa waan yarida dejin doonaa haddii aynu nidhaahno control iyo minus aynu yarayno waxaanu dooranaa intaa kadib waxaanu dooranaa qaybta ankarka markaynu markaasi sidaa u dooranno click ayaan halkaa leenahay kadibna waxaan leenahay halkaasi click ilaa iyo markaasi qaybtii kale aynu markaasi kusoo xidhaynaa sidaa markaynu isugu soo xidhno kadib waxaan leenahay shape ayaynu dooranaa markaa waxaan samaynaa colorka way ka bedelinaa waxaynu midnaa qaybta shapeska kadibna waxaanu kasii dooranaa halka madowga kadib waxaynu celinaa dhanka iyo markaasi bidixda ayaynu jiidinaa halkan ayaynu click leenahay kadibna waxaan leenahay kalarka casaanka ii door kadibna waxaan leeyahay move toolka ka dooro marka waa inaan haddana mar kale aynu layer cusub samaynaa markastoo aad shape samayso waa inaad layer cusub samaysaa haddii kale iska kaa dhex qasmayaan layer cusub ayaanu samaysanaa kadibna waxaan leenahay anchor pointiga ayaan soo dooranaa halkan ayaan markaasi halka ayaan click leenahay kadibna halkaas ayaan click leenahay markana waynu isku soo xidhanaa sidii tii hore oo kale halkan ayaan click leenahay kadibna waan isku xidhanaa markaan saa isku xidhnaa shape ayaan leenahay markasta aad isku xidhayso waa inaad shape doorataa shape marka soo doorato waxaad leedahay qaybtii shapeska kaalay kadibna halkan waxaad u celisaa ama waxaad leedahayba waad dooranaysaa click baad leedahay kadibna stroke waad ka biinaysaa ilaa stroke markaad ka dhigto qaybta filka ayaad click leedahay
kalarka casaanka ah ii door. kalarka casaanka ah markaan doorto xoogaa waan yara madoobeynaya kalarka oo madaxigeen halkaas ayaan safraya, kadibna hoos ayaan u yara dejinayaa ilaa meelaha intaan ilaa meelahaas ayaan markaasi aan ka dhigaya, kadibna okay ayaan leeyahay. okay markaan saa wadhacdo halkan ayaan imanayaa, opacitygiisa waxoogaa waan yaraynaya. ilaa in macquula ayaan ka dhigayaa, ilaa waxaad geynaysaa intii aad jeclaat, kadibna move tool ayaan dooranaya. sidaa markaan idhaahdo waxoogaa haddana waan sii yaraynayaa si markaasi inaha move tool ayaan leeyahay. layer cusub ayaan samaysanayaa, anchor point ayaan dooranaya, halkaas ayaan click leeyay, haddana halkaas ayaan click leeyay. kadibna waan isku soo xidhaya. markaan saas ugu xidho shapes ayaan leeyay, markasta shapes ayaa kalarka madow ayaa laysiiyey, kalarka madow ayaan isaga u daynayaa, move tool ayaan leeyahay. waxaan leeyahay haddana mar kale layer cusub ii samee, anchor point ii door, markaas ayaan click leeyay. qaybtii hoose ee markaasi footerka ayaan markaasi samaynana. sidaa markaan u sameeyo shapes ii door ayaan leeyay, kadibna qaybta shapeska ayaan imanayaa, qaybtan halkaa waxaan kasii dooranayaa markaasi stroke waan ka saarayaa, no stroke ayaan ka dhigayaa. halkan qaybta filka ayaan dooranayaa mar kale, kadibna waxaan kasii dooranayaa casaan, amaba intaan halkaa click yidhaahdo in waxaan leeyahay kalarka uu kaasi wato kaa ii door ayaad leedahay, oo click ayaad leedahay. automatically shapeka kalarka cas leh ayaa lagu siiyey, kadibna okay ayaad leedahay. okay markaad tidhaahdo move tool ayaad dooranaysaa, kadibna waxaad leedahay haddana layer cusub ii samee. layerka cusub markaad samaystid waxaad leedahay anchor point, halkan ayaad markaasi haddana click leedahay. xoogaa waan yara dedejinaa si markaasi aan waqti u helo, ana waqti badan idinka cunin. sidaa markaan sameyno shapes ayaan leenahay. shapes markaan saan idhaahno haddana waxaan dooranaa shapeska, qaybta shapeska ee rectangle iyo waxaas ay ku jiraan ayaan dooranaa. stroke ayaan ka biirinaa, stroke markaan soo saaro qaybta filka ayaan haddana kasii dooranaa. qaybta filka markaan kasoo doorano bartaas ayaan soo furaynaa. sidan ayaa noo soo baxaysaa, daaqadan ayaa markaasi noo soo baxaysa. daaqadan markay noo soo baxdo waxaan rabaa shapeskayna madaxigeenka ah aan casaanka saafiga ahayn inaan click idhaahdo si markaasi kalarkiisa laynoo siiyo. kalarkiisa waa kan halkan waa laynoo siiyo. haddii markaan halkan oo kale aan cadaanka ka dhigo, halkan kalarka haddii aan cadaanka caadiga aan ka wada dhigo sidan oo kale ay u ekaato, aan rabana layer casaan xigeena inaan doorto oo madowna ku dhex jiro layerka shapeka cafwan shapeka ayaan markaas click leeyahay, waa laynoo siiyey automatically. kadibna okay ayaan leeyahay. okay markaan saa idhaahdo wakaa uu isbedelay meesha wada aragtaan, move tool ayaan leeyahay. move tool markaan saa idhaahdo haddana waxaan rabaa inaan samaysto kan madow oo kale inaan samaysto markan. so marka waxaan leenahay haddana maadaama aynu intaa dhamayna waxaan leenahay layer cusub ii samee. markasta ilaabin layer cusub ayaa samaynaysaa, kadibna waxaad leedahay anchor point, kadibna waxaad dooranaysaa halkaas ayaad click leedahay, halkaas ayaad haddana click leedahay. markaa waynu isku soo wada xidhaynaa, marka ugu dambeysa waynu isku soo wada xidhaynaa. sidaa markaynu isku soo wada xidhno, haddii aan soo yaro dhaweeyo aan idhaahdo control iyo plus oo kale, hadaan idhaahdo control iyo plus oo kale si aan idin tuso, waa halkaas wayna isku xidhantaa. marka saas isku xidho waxaad leedahay, hadaynu dib ugu noqono waxaan leenahay shape ayaan leenahay.
shape marka la dhahno layerka marka waxa la inoo siiyay colorkii madooba ayaan markaas doonanay control iyo minus hadii aan dhahno. So marka waxaan rabaa inaan loogadii soo geliyo. inta aan loogada aan soo gelin marka hore waa inaan halkan qaybta shapes ka imaadaa, right click ayaan leeyahay. waxay noo soo furmaysaa horta inta aanan right click odhan inaan marka hore layer cusub samaysanaa. layer cusub markasta waa inaad samaysataa. waxaan leeyahay qaybta shapeska kaalay. shapeska markaad kaalaydo halkan ellipse tool ayaad ka dooranaysaa. ellipse tool markaad saaga doorato waxaad leedahay halkan ayaad saagu soo jiidaysaa. halkan markaad saagu soo jiido aad saagu soo jiito waxoogaa waxaad ka dooranaysaa colorka madow ayaa lagu siiyey loogadaadii. stroke ayaa markaas ku jira. colorkan madow waa stroke, color caadi ma waad ka saaraysaa stroke ama wax yar ayaad inahaas kale ayaad ka dhigaysaa. kadibna waxaad ka dooranaysaa move tool, kadibna waad qaadaysaa ilaa meelahaas oo kale ayaad iska dhiganaysaa. okay, haddaba waxaan rabnaa inaan loogadii soo gelin. file ayaad leedahay, kadibna waxaad leedahay halkaa ay ku qoran tahay place linker ayaad leedahay. bartii ay markaasi loogadaadu ay taallay ayaad markaasi kasii dooranaysaa. waxay taallaa qaybta pictures ayay taallaa. loogadayda waatan markaasi waan soo dooranay, kadibna place ayaan leeyahay oo laygu soo darayaa. sidaa marka laygu soo daro waxoogaa waan yaraynayaa. laakiin si aad u yarayso marka hore haddii marka halkaa jagtaan ka qaadno oo sidan oo kale ma yaran karaysid. markaa si aad u select garaysid waxaad leedahay control iyo t ayaad leedahay. control iyo t marka tira waa lagu select garaynaya. kadibna halkan yar ayaad imanaysaa. marka uu markaasi cursor-ku isbedelo sidaasi noqdo ayaad double click leedahay. kadibna sidaas ayaad u yaranaysaa ilaa inta markaasi aad doonayso. kadibna waan dulgeynaa. inaysaa dulgeyno waxaan imanaa qaybta layerska ayaan imanaa iyadoo sign ah. kadibna waxaan leeyahay right click ayaan leeyahay. markale ayaan right click leeyahay. kadibna waxaan leeyahay create clean mask. create clean mask markaan idhaahdo loogadeeni waxaa la dhex geliyey ellipse toolkii. si aan markaasi loogada u yarayno xoogaa dhinac ayaa ka yara maqan. control iyo t ayaan leeyahay. control iyo t markaan idhaahdo waan yaraynayaa ilaa markaasi inta aan doonaya anigu ayaan yaraynayaa. intaasba waan daynayaa. kadibna checkta ayaan ka qaadayaa macluumaadka ayra saxda. intaas ayaan daynayaa. waxaan rabaa inay informationkii markaasi halkan aan soo dhigo. waxaan leeyahay qaybta t-da ayaan markaasi halkan t ay ku qoran tahay ayaan click leeyahay. ama qayb keyboardkaaga waxaad leedahay xarafka t ayaad taabanaysaa. xarafka t markaad taabato waxaa markaasi lagu soo doorayaa qaybta qoraalka. kadib markaa uu isbedelaya cursor-keena sidan ayuu noqdo. kadibna halkaas ayaan click ku leeyahay. halkaas markaan click ku idhaahdo name ayaan qorayaa. enter capital ayaan ka dhigayaa. name markaan qoro kadibna waan highlight garaynayaa. markaan highlight gareeyo waxaan tegayaa halkaa colorka cad qaybta sare. kadibna click ayaan leeyahay waan dooranayaa. colorka aan doonaya markaasi madow ayaan anu markaasi ka dhigayaa. kadibna okay ayaan leeyahay. intaa marka aan sameeyo halkaa waxaan ku qorayaa qofkii markaasi ID cardkiisa qofkii ID cardka loo sameynayay. tusaale oo kale halkan xogtaadii ayaad gelinaysaa. anigu halkaa waxaan gelinayaa kale Axmed ayaan gelinayaa. magacayga oo kale ayaan gelinayaa Axmed Daahir ayaan gelinayaa. enter ayaan leeyahay. positionka ayaad gelinayaa markaas. shift iyo laba dhibcood ayaan leeyahay. positionka markaan soo qoro waxaan leeyahay software developer ama waxaan leeyahay shaqada ayaan halkaa gelinayaa graphic. hadhow waxaad doontaa ayaad gelinaysaa graphic designer.
designer markaan geliyo saas ayaan u tegayaa organizationka ayaan gelinayaa haddana ama organizationka ama companyga meesha markaasi uu ka shaqeeyo. Organizationka waxaan ka dhigayaa Moomin Academy. Moomin Academy markaan saa ugu qoro hoos ayaan u tegayaa haddana kadibna waxaan leeyahay locationka ay geli. hadhow xogta aad doonto ayaad markaasi gashanaysaa. Locationka markaas waxaan ka dhigayaa Hargeysa, Somaliland. Okay, Hargeysa, Somaliland. Emailka ayaan gelinayaa. waxaan waa iska tusaale un adiga ayaa markaasi aan xogta doonaysa ayaad gelinaysaa. qasab maaha inaad ingiliso. kadib markaan intaas gelino haddana waxaan markaasi intaas ayaan ugu daynaa. kadibna waxoogaa waan select garaynaa waxaan leenahay yaan select garaynaa control iyo A ayaan leenahay kadibna waan yaraynaynaa. halkan ayaad furtaa markaasi aad ka yaraynaysaa kana weynaynaysaa. intaas ayaan markaas u daynaa kadibna jagta ayaan ka qaadaynaa. jagta markaan ka qaadno waxaan leenahay control iyo T si noogu select garaysmo kadibna waan qaadi karaa meeshaan doona ayaan markaasi aan dhigi karaa. aan saa kusoo yara ballaadhinaa kale hadii aad muuqaalkani ka heshay please share dheh sidoo kale like dheh. wixii markaasi su-aale aad qabtana qaybta commentiga noogu reeb. insha allah waxaan isku dayi doonaa inaanu sida ugu dhaqsaha badan aan uga soo jawaabno su-aasha. ku mahadsantahay daawashadaada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.